هو أكبسو من أكسوين قفنابا قصبكي فرحة هذا خاص xagee u socotaana waxaan doonayaa wax yar inaan wada hadalno ha cabsani dood dheer ma ahan meeshaa rabta aad haddaan wada hadalnana hoofeelkan iga qabo maxaa waaye maxaa qoroo ma taqaanid akhrisna ma taqaanid fiiri bal hoo iga qabo hore ayaan kuugu sheegay lacagtiina iyo hantidiina anigu uma baahni keliya joonish laha iga dheereenina ayada ayaa igu filan aniga braawo waa imaanay haye waatana boorsadaada is ilaaliya joonish kaale gabadheeda kaale hal mar xitaa ma ishminaysid miyaana joonish horta gabadheeda ma ogtaana aniga mar walba maskaxdeeda waxa ku soo dhaca waxa ay yihiin yacni waxaan jeclahaa adiga iyo asxaabtaada inaan baxno bannaanka aadna oo weliba waqti qurux badan aan soo qaadano mana u baahna adiga inaad iga xumaato gabadheeda maxaa yeelay farxaddaada ayaa muhiim ii ah waa ku baryaa marka kaali joonish ha iga tegeen aniga waan ogahay si xun in aan kuula dhaqmo gabadheeda waan ogahay jacaylka hooynama xitaa kuma aanan siinin laakiin balan waa isbeddelaya aniga weli hadda waxaan tegay dhakhtar daawooyinna waan qaadanayaa waxaana rajaynayaa hooyo wanaagsan in aan noqdo oo buuskayga aan ka soo baxo joonish waad jeclaanaysaa soo maha gabadheeda ii sheeg naagtan iliflaleeya adiga maxay kugu samaysay ii sheeg bal maxaad ku aragtayne saan oo dhan maxay tahay sababta hadda ugu jeclaatay gabadheeda joonish kaale aqay waa lagu sugaa soo dhaqso joonish marwaneehan waa ku baryaha isdeji wax walba annaga ayaa xalinayna weliba sida ugu dhaqsiyaa badan jaanis oo keliya na sii hay waaya hamasan tahay waaba okay hadda wax walba dadka anaga aan ganacsiga kula jirno run ahaantii cabsi fara badan ayaa dareemaya waxayna leeyihiin arrintaas sida ugu dhaqsiyaa badan maa la xaliya intaasa sii weynaani saaxiibkaygii horta waad saxan tahay taada kale haddii arrintan anaga wax ka qaban weyno ogo waxyaabo badan ayaa nagu soo kordhi kara marka waxaan kaa rabaa mataqaan qorshehan inaad noo sheegto hadeertaan ganacsigana 30% ayuu marayaa waa inaan kor uga sii qaadnaa waayo shirkadaha kale magacintooda ma soo heshaynay sheeg ilaahay hadeerta aniga ma soo ogaani baaritaan fara badanna waan ku hayaa laakiinse aniga waxay la tahay arrintani shirkada waaweyn inay kula guleeyiin weliba lacag fara badan ee ku bixinayaan si anaga ganacsigeenna oo hoos u dhac aad weyn ugu imaado marka waa inaan ka feejignaana arrintaas macquul maaha inaan xal keenno waa haa waa runtaada xal waa inaan keennaa shirkadaha anaga dhibaatada nagu hayo dalka dibaddiisa ayay ku yaalaan sida maraykanka iyo dalal kaleetaba sidaa macquul maaha xaaladaha waa inaan ogaanaa shirkado kaloo waaweyna ayaa jira soo lama socotidna midaas si fiican oo wala socdaa shirkadaha anaga hoos u dhacaya nala rabaan weliba cadaadis fara badan ayaana saaraya waxayna rabaan anaga inayna burburiyaan aaway horta sawdaa arrimahan oo kale ayada ayaa khabiir ku ah marka sheekadan ayadaan la kaashan lahayn wax walba inoo xallin lahayd sawdaa arrinteeda waxba kama ogid maxaan ogeynin ii sheeg marwe cimraan ayaa xal shaqada ka burisay maxaa dhahday waxaasoo dhan goorma ayay dhaceen ii sheeg bal horta marwe cimraana waxay ogaatay diyaal wax walba inay sawdaa u soo sheegtay dhibaato badana aniga waxaan bislahaa sawdaa mar hore ayayba ku hilmaamtay maxay taa waxyaabaha inay samaynayso hadda faraad maxaan samaynaa ii sheeg kullay arrintan sawdaa ayaa qaladka ku leh annagana waxaan u baahannahay ayada inaan xalino ayadana muhiim ayay noo tahay waan soo xalinayaa halo habarirtaa jalmis ayaa kula hadlayso i dhegayso wiilkayga marwe jilmis si fiicanaan ku maqlaa iga aamusay hadalkayga dhegayso hadda aniga waxaan ku dhaho oo keliya ayaad samaynaysaa
waayahay إليف xaaladada ma wanaagsanee maxaa dhacayna إليف ii sheeg waxa dhaca xabiibtii haweenkii arooskayga dhacaaye aniga joonish ayaa ii imaatee waxayna ii dhahday sababaa waxayaan ku soo tusaayaa macantadeeda maxaa dhacayna ii sheeg adigaa dartaa waad iska bixi kartaa anigana ninka wax mihirna ayaan soo dhaweynaya macantadeeda firaad wuxuu dhahay waxyaabahan mararka qaar way dhacaan annagana hadda marti ayaa noo joogto adigana asxaabtaada ayaa ku sugaysana keen marka wax walba firaadan u sheegaynaa markuu meherka dhaca okee soo bax ahayna wadahe anigana hadalkaas markii aan maqlo waxaan sameeyey xitaa waan aqoon waaye wax qaldan leh amaa maqashayna iliif waxaa laga yaabaa walwal inuu kugu furnaa kadibna aad rabto guurka inaad ka laabato sidaas darteed ayaa wax qaldan u maqashay wax weynna ma ahan yaaqo iska dhacdaa marka qaar may fuliya wax walba aniga dhegeyga ayaan ku maqlay yaaqay been maaha warkaan waan la socdaa xabiibtideeda adiga been ma sheegi kartid laakiin mudane firaad waxaas inuu samayn kara ilaa ma ahan waa qof wanaagsan asaga aabbihiisna lagama yaabo waxyaabahaas qaabka daran leh inuu kula dhaqmo aabbihiis ma dili kara yaaqee cimraan hadalkeeda runayuu ahaa wax walbana way ku saxsaneen macnaha maxay ku dhahda ayada oo ayada maa wax u sheegtayna maya yaaqe aniga waxaasba ma sheegin laakiin aniga ayada xaal ayaan wada kulannay waxayna i weydiisay aniga firaad goortaan isbarannay ayadana waxay idhahday firaad wax aqoona uma lihid waana run hadalkeeda maanta aniga adiga waan ku aqaanaa hooyadaadan aqaanaa meeshaa ka shaqaysaan aqaanaa nafsadaada dhan waan aqaanaa laakiin firaad anigii isaga maalin dhowle isbarannay waxa aqoon u leeyahayna ma lahan si fududna waan isku guursanay waxyaabo fara badan aniga kama aqaano kaliya waxaan ogahay wax wanaagsan inuu ii sameeyey darteedana wax walba oo iigu qabtay xitaa nafteeda inuu badbaadiyey laakiin aniga aqoon dheeraada uma lihi xitaa sababtoo wanaaggan iigu muujiya aniga ma aqaano fuliya aniga shalay qasrigaas iyo gurigaas joonis darteeda ayaan u galay balse maanta nafteeda ayaan u cabsanayaa ayatan joonis waxaan isleeyahay wax dhibaataa leh ameen ii soo gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan qasrigaas inaa uga soo baxdaan rabaan fuliya isdeji aniga waxaan rabaa arrinkan baaritaan inaan ku sameeyo anigoonan waxba hubsanin marow qofkaas inaan wax weydiiyo tan kale marow aniga dadkan shaqadooda waxaan rabaa shaqo aniga ii qaasa inaan raadsado lugahaygana aan ku istaago dadkaana joonash waan ka badbaadinayaa aniga fuliya waa helaysaa shaqo macaantadeeda waxbaha ka cabsana shirkadooyin fara badan ayaa aniga codsiyo fara badan u dirsaday wayna noo soo jawaabayaan marka adiga inaad cabsato oo sida u walwalsho looma baahna wax walbana xalaa loo helayaa hay xabiibtadeedii maya markii hore meeshaan ku istaagnay miyaan ka bilaabaynaa hadda intuu ku ekaa hadalkeena arrimaha walaalkaaga ayaan ka hadlaynay in hooyadaada markii ay xanaaqdo maxay ku samayn jirta walaalkaaga sidoosuu u dhaqmi jire mar walba hooyo ayuu iiga celin jire yacni wuu i difaaci jire waaye asaga markuu sidaas sameeyo hooyadaada ma ka xanaaqi jirteen macnaha asaga sayid ma igu xanaaqi jirte maya hooyadee waqti walba walaalkii ayay jecleed iyada in adiga sidaas maxay kuula tahayne ma aqaane hooyadee weligeed xitaa laabta ima gelinin weligeed iskuma dayin aniga gacanteeda in ay taabato taas maxaa kaaga daran xitaa iskuma dayin inay hab isiisa aniga hooyadee weligeed ima aysan jeclaan aabbahayga ayaa i jeclaa wax walboo aan u baahannahayna isaga ayaa ii keeni jiray waqti walbana garabkayga ayuu ahaa zaadaan u fikiri jira
mar walbana waxaan isweydiin jiray maxay gabadheeda kuu dhihi lahdaa maxayse tahay sababta ee kuu nacabtaa aniga walaalkee jacaylka hooynima isaga ayaa helay wax walba aniga aan u baahnaan isaga ayaa nasiib u yeeshay hooyada ilmaheeda ugu horeeya walaalkii ayuu ahaa anigana ma uu igu faraxsaneen firaad gudaha muu soo gudbi karaa ها maxaa diiday soo gudub maxaad cabaysaa bal ii sheeg sawda mara waqti badan inaan halkan ku lumiyo xitaa ma fariisanaysid miyaane wax walba waan ogahay albiir ayaa ii sheegay sawda waanba ogaa inaad ogaanaysid aniga diyaar ayaan ahay noo bilaaw maxaad ka wadaan ilaa hadda kuma fahmin inaad qayliso ayaad halkan u imaaday aniga waan ogaa inaad xanaaqsantahay waxaan maxaad u samaysay aniga waan kugu kalsoonaa inaad idhahayso waan la socdaa diyaar ayaan ah marka soo bilow qaylada mayani waxaasoo dhan ma samaynayo laakiin aniga waan fahmi karaa sababta adayg waxaas u samaysay waan fahmi karaa maad idhaahdee waad dareemi kartaa soo maha aniga sababta aan waxyaabahan aan u sameeyey waad la socotaa waxaan ani adiga isla soo marnay horena waxyaabahan oo kale waan kaala hadlay marraba mar labaad inay soo laabato bliis aniga waan ku fahmi karaa sawdaa wax walbaad adiga samaysayna aniga kama xumi kamana xanaaqaayo laakiin waxaan kuu sheegayaa dunidan sideedaba waqti walba inay isbeddelayso aniga adiga xiriir nama dhex marin xiriiraan saxabtina ma ahayn marka wuu ku baryayaa qihaddeertaan xaaladahayga anigaab igu xun yihiin marraba dhibaato kale inaan dhexda ka sii gala sawda anigana qalbigaan kaa dhaabaco waa ku baryaa arrintan waa ay soo dhammaatay adigana waxaan kaaga baahanaa garab buuxa inaad siiso macnaha adiga saaxiibaddeeda ayaa tahay maadaamaad adiga saaxiibaddeeda tahay waxaan kaaga baahanaa garab buuxa inaad isiisa xaaladda aan maanta ku jiran waad u jeeddaayaa ha igu fiirsanin marka biliis sidaadoo kale sidaydoo kale waan ku baryaa shirkadda dib ugu soo laabo hooyada hadday ogaato maxay dhahaysaa sawdaayaaqi muhiimadda middaas ma ahan aniga madaxa ayaan ka wareeray hadda maxaan sameeyaa idhegaysa anigaa kaa hubo nolol kaloo qurux badan ayaad adiga helaysaa dad kalena haddeertaan waa ay faraxsan yihiin ogow shirkaddeeda adiga ayay kuu baahan tahay firaad waayaha diyaar waay sidaa samey dhahday ayaan samaynayaa waad mahadsan tahay marka horeba garabkayga inaad eed waan ogaa haddeertaanna waxaan kaa rabaa biritoole shirkadda inaan adiga kugu arko waayaha firaad diyaar waay waayahay mahadsanid baay khayr badanaan kuu rajaynayaa biritoole aan is arkeenaa
maya ma diyaarin arrintaas inaan sameeya ha iga sugin waa ku baryaa faraha iga qaad maxaa wax maasadan saadka kaa muuqata sidee wax u jiraana go'aanaad qaadatee maxaad uga laabatay maxaa isbedelay adiga arrintan wax kaa gala ma lahan mar kalena ha isoo wicin ma iga hubtaana ka fiirsayaan ku dhihi lahaa micnahaa marwasooda labadeen heshiis ayaan wada galnay kaamana ogolaana inaad ka laabato sida ugu dhaqsiya badan alaabteeda iigu keen haddii kale hee maxaad igu samaynaysaa naakaale ma ii hanjabaysaa mar damba ha isoo wicin iga dhammaaw aniga hadda maxaa samaynaysaa marka maruma fiish aayad ayaan wax weydiinayaa waxaan isku dayaa inay ii sheegto wax walbana meeshaas ayaan ka ogaan karaa waayahay laakiin adiga ma hubtaa naagtis inaad ku kalsoonaa kartid aayada qof xun maa run ahaantee maafiish dadkao dhanna way difaacdaa ayada maafiish dadkao dhan ma difaaci karto familkaas oo keliya ayay difaaci kartaa adiga inay wax ku qaban karta ilamaba ahanba waan ku khasbanahay qof kaloo aan wax weydiiya ma haysta ayada ayaana weydiinayaa iliif xabiibtadeydii waxba ha ka cabsan aniga waan kuu imaanayaa maadaama guriga weyn yahayna dhinac ayaan ka degaaya garabna waan ku siinayaa maya macaantadeeda adiga marab cimraan xaaladdeeda waad og tahay soo maaha waayahay laakiin fiiri haddii ay wax dhacaan hore ayaad iga soo wacaysaa wax walbana waa ii sheegay maho waaya diyaaro waan kuu soo sheegayaa baay shaqadaa ku mashquulsanaa waaba igana xisbe igaraali noqo maafiisha halkan ku jirta isma dhihinin aniga maya midda kale marwada waxay kuu dalabtay in waxaan dhan lagaa bedelo marwo cimraan waxay tiri sariirta laga bedelo wax walba ayda rabtana ha loo suubiya dhahda midda kale waa dalba kartaa qolka dhan haddii lagaa bedela ii sheegba martaa maya looma baahna qol kale inaad isiiso laakiin xoogaa welwel ayaa igu furan junash xataa markii hore saana ahayd moogido qof walboo nagu cusub saanuu noqahaa laakiin waxayr kadib familkan waa la qabsee waxbaa ka cabsan laakiin waxaa rajeeyaha familkan inaad la qabsato weliba ayaga dhan aa jeclaata gabartee ma fahantee hadda anigu waa sii baxa qolka mudane jamiila aadaa asaa hagaaji rabaa aan ku weydiiya asaga ilaa ii goorme ayuu xaaladan ku jiraa ii sheeg bal runtii haddii qiyaasa 5 sano 6 sano meelahaas aa islee haddii ahayn xataa way u dhowdahe waaye asaga dhakhaatiirta maxay dhaheenna goormuusa soo kacayaa kale midaas raja ma laga qabo ilaahay awooddiisa weli lagama rajo dhigin laakiinse dhakhtar inuu caafi karo uma maleeyahay midda kale ma soo kacaya u maleeya wax badanuu ku jira koomada kale rajo lee waa wax walba laakiin asaga sidoo ku dhacayne sababta ay weydiisa maxaa waay macnaha asaga waxaa laga yaabaa dhiikar inuu qabo sidaas darteedan inoo wareeray oo jaranjarta ka dhacay horta aniga shaqo badanaa leeya gabartee hadhowaa wada hadlaynaa labadeenna
maxaa halkan ka samaynaysaa aniga waxaan waaye haa fiyoorahan ayaan kuugu talagalay waa jecesha soomaana adiga beella ayaa taa si wanaagsanna waa u dhaqantay run ahaantii adiga iyo fiyoorahaaga waa isla baxaysaan meeshaana maba ii joogafuliyaa maxaa ku dhacne soo baxaa ku dhah saaxiibo kadeed maba rababa aniga waa baxeele fiyoorahaagana hore le u qaado meeshaana maba ii joogaysidba soo bax nakaa soo baxniyo waxaa iska dhaafay gabadheeda maxaad samaynaysaa beerjilaac dhan iska gabadheeda ku dhan labadiina ma ii haraysaa hooy iga leexaa ma ii haraysidaa war aniga fiyooro ma baahna ayaan ku dhahay bannaanka waa inaad iiga baxdaa soco maxaa sugaysaana meeshaan inaad iisi taagnaato maba loo baahnaba fiyoorana kaagama baahnay soco yalla bisuuc ahe maxaa isku adkaynaysaa waad raacaysaa adigana qabso baxa labadiinaba hooy iga furyaaqay cadowgaaga maa iridda maxaa iga xiratana gabadheeda buuqiin intoo ka soo dhammaanaya oo arrinta aad ka xalinaysa albaabkaama furaaya aniga ogow aniga qaxwo kuuma dirsanyaa ii keen ku dhahayna laakiin anigaa xasuustayna ii dirsatay halkaan iska dhig maafiish hadalka alalaabasi iga daa dhaqsa hadal ayaan ku dhahay naa maxaa u aamusan tahay hadal eliif hee maxay dhahda eliif waxa uma samaynin laakiin su'aalo fara badan oo mudane jamiil ku saabsan ay weydiiyey maxay ku weydiisay hee hadal hee dhaqso waxay idhaahda mataqaanaa isaga oo dhiikarmaa ku dhacay xanuunkaas uu qabtay sidee wax u jiraan iyo su'aalo noocaasa ee ay weydiiyeysa maanta oo dhan haye adigan ma u jawaabtana maya wax jawaaba ma siina afkee dhan ma u kala furin shaqadaada ku filnoo marwa kaalibo haddii wax walba kuu sheega haddana eedda animaa dushiiga saaree sawirkaa ninkayga waa i wiilkayga firaad 8 sano markaas firaad jiray siday la taa way faraxsan yihiin labadooda haa saa'iday u faraxsan yihiin firaad aabiis zayd ayaa u jeclaa asiga ayaa ii sheegay runtaa waay way isjeclaayeen labadooda zaa'id welibo firaad qofkoo hadal ka maqlaayo waa aabbiisoo keliya waa ka xumaha isagana wuu jiran yahay hadduu caafimaad qabila maanta waxaan ma dhici lahayn xaaladdaana kuma jiri lahayn annaga waa qof keliya u kalsoon yahay asaga hadalkiisana waa maqlaa run ahaantii waan ka xumahay maadaama shil xun oo ku dhacay firaad aabiis aad ayuu ugu murgi soo maaha haa dhammaanteen waan ka murugnay sidaan inay dhacdo wax qoran ayay ahaayeen anigana nolosheenna hore ayaan u sii wadanna ma joojin aniga firaada wuxuu ii dhahay waa macquul maalin un koomaha inuu ka soo kici doono waxaa laga yaabaa inuu soo kacana waa laga yaabaa ugu dambeyn aniga waan ku fahansanahay ninkayga jamiil hadduu soo naaxo qorshahaaga inuu fashilmo maa ka cabsanaysaana way iska caddaa inaad ka baqanaysid hal taloo caataha ayaan ku siinayaa inaad ka qaadatidna isku day dadka koomaha ku jira intaad ku mashquuli lahayd
dadka caafimaadka qabo iska ilaali iyaga ayaa wax walba ka suurtoobaane iga qabahee